dhinaca kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta isbitaal ku booqday muwaadin Soomaaliyeed oo isaga iyo qoyskiisuba ay kooxo hubeysan ay ku rasaaseeyeen magaalada Muqdisho. mar kale wariyaheena Nasr Bashiir Cali ayaa qodob wareedkaasi inoo haysa. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo ka dhawaynaya ballanqaadkiisii ahaa in qof kasta oo Soomaaliya uu la qaybsan doono dhibaatada ayaa isbitaalka Erdogan Exdigfer waxa uu ku booqday muwaadin Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Xasan Cabdi Cawad oo isaga iyo caruurtiisa kooxo hubeysan ay ku rasaaseeyeen Muqdisho. dhaawac iyo dhimashana ay ka soo gaartay qaar ka mid ah ilmihiisa si uu la qaybsado dhibka gaaray. mudane Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaaraha dalka ayaa Cabdi Xasan Cawad oo ka mid ah mas'uuliyiinta shirkadda Dahabshiil waxa uu dareensiiyay in dawladda Soomaaliya ay ka xun tahay isla markaana ay la qaybsanayso xanuunka gaaray ugana tacsiiyay geeridii ku timid wiilkiisa oo 16 jir oo ku geeriyooday dhacdadaasi xanuunka badan. Xasan Cabdi Cawad oo ah aabaha leh caruurta dhibku gaaray isla markaana la saarnaa gaariga ayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya uga mahad celiyay booqashada ugu yimid warbaahinta qaranka oo warbixiyay inta uu gaarsiisan yahay dhibka gaaray. waxaan ahay aabaha caruurta lagu laayay maalintii talaadadii hore magaalada Muqdisho. ra'iisul wasaaruhu wana soo booqdeen iyo dad badan baan soo booqdeen waa mahadsan cid kastoo soo booqatay runtii waa u mahadnaqaynaa. ilmaha waxay wax u gaareen hal wiil waa dhintay on spot Allah u naxariisto 16 jir buu ahaa magaciisana Maxamed baa la oran jiray. inan 6 jir ah waxa ku dhacay waxaan ay ku yaadaan maskaxda ayaa dhaawac culus ka gaaray. haddana waxay ku jirtaa ICU-da amaba adeega xaaladaha daran. wiil waxay labada gacmood iyo sanbabka iyo intan saableyda ayaa dhaawac ka gaaray. qaarka inta dambe waxoogay dareenkiisu ma fiicna ama ma shaqaynayo. xangulaha ayaa xabadu ay wax gaarsiisay. ilaahay waxaan uga rajaynaynaa caafimaad laakiin xaaladiisa kale waa stable labada gacmoodna waxbuu ka qabaa. neefsashigana xoogay problem baa ka jira. marka ilmaha wax gaaray waxa weeyaan waa dadka guriga meesha wax ku gaareen waa 6 qof. gaariga family dhan baa la socday marka 4 caruura iyo hooyadood waa badbaadeen. darawalkii iyo 2 inan oo kalena waa dhaawac. dhaawacooduna waa dhaawac runtii mostly culus laakiin waxba laga qabtay. Nasr Bashiir Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.